oo ku dhex taalla badda gudaheeda. Waxaa ku nool 27 qof. Haddii aan ku iraahdo bal ka waran waa dal la mid ah dalalka kale ee adduunka, la yaab ayay kula tahay in 27 qofood oo keliya ay noqdaan dal. balse waxaa ka sii yaab badan in dumar dhan aysan ku nooleen marka laga reebo boqoradda. Waxaan booqan doonaa dalkan cajaa'ibka leh ee ku yaalla badda gudaheeda. Haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir bogeenan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana sii faafi. Labada tiir ee aad u jeedo ee dusha laga saaray dhismaha yar ee jaqafta ah waa dalka adduunka ugu yar oo ay ku nool yihiin 27 qof oo keliya. Dalkan waxa lagu magacaabaa Sealand. Ma awoodid inaad gasho adiga oo aan haysan ogolaansho. Waxa uu leeyahay baasaboor u gaar ah, lacag u gaar ah, ciidamo u gaar ah, haddana waa 27 qof oo keliya. Waxa uu ku yaalaa gudaha badweynta waqooyi ee Yurub. 2 qaab oo keliya ayaa lagu tagi karaa oo ah inaad doon qaadato si aad u gaarto iyo inaad helikabtar ku tagdo. Waxa uu leeyahay helikabtar iyo hub u gaar ah. Waxaa intaasi ka sii daran inuu leeyahay miisaaniyad sanadeed 200 oo milyan iyo ka badan ayaa miisaaniyadiisu ay u dhaxaysaa sanad kasta, iyadoo 27 qof oo keliya ay ku nool yihiin dalkan. Waa in ku dhow miisaaniyadda dalkeena Soomaaliya. Sealand waa boqortooyo dhan oo leh boqor, kaasi oo hogaamiya dadkan adduunka ugu yar. Michael Roy oo ah boqorka dalkan waxa uu u taliyaa dadkiisa oo dhan 27 qofood. Waa boqortooyadii ugu yareed dunida. Waxaase lagu sheegaa in dadka intiisa kale ay yihiin isla boqortooyadaasi, oo haddii si kale loo dhigo ah in dadka dalkan ku nool ay yihiin kaliya hal qoys oo ku tashaday inay adduunka intiisa kale ka go'aan. Sanadkii 1967 ayay ku dhawaaqeen inay yihiin dal madax bannaan oo wax kasta ay u gaar yihiin, lana mid ah dalalka kale ee adduunka. Xilligaasi ka hor waxa uu ka tirsanaa dalka boqortooyada Ingiriiska. Laakiin arrinta cajiibku waxay tahay in dalkan oo dhan dhismihiisa markii hore loo qorsheeyay goob gantaalada waaweyn laga rido, isla markaana laga maamulo hubka culus ee dawladdii Ingiriiska. Balse waxa uu haatan noqday dal dhan oo ay boqortooyo ka taliso. Dalkan waxa uu leeyahay sida dalalka kale ee adduunkaba hoteelo, maqaaxiyo, goobo lagu madadaashado, xabsiyo ay ku xiran yihiin maxaabiis iyo shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqo. Gudaha dalkan haddii aad eegto waxa ku arkaysaa wax kasta oo yaalay dal horumaray. Dalkan ayaa haatan dabar go'aya. Dadka ku nool oo dhan 27 qof waxay kor u dhaafeen da ahaan 30 ilaa 40. Waxaana xilliyada qaar sida haatan oo kale aan joogin wax dumar ah marka laga reebo islaanta boqorka oo ah boqoradda dalka. Dalkan Sealand weli waxa uu raadinayaa ictiraaf, laakiin haddii la aqoonsado waxay dhalaysaa in qoyskii ka kooban 20 qof uu noqon karo dal. Haddaba daawadi bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag.